inta janaasada la soo geliya iyo karfanta sariirtii meydka la soo saaraa masaajidka la soo geliya asagoo caafimaad qabuu qaadka fadhiya isagoo caafimaad qabuu qaxwooyinka sheeda iyo maalaa yacni la fadhiyey baktigiisa iyo meydkiisa in masaajidka la keenaa ma aha qof rabbi u caroodaan rabnaa maanta inaan raalli ka noqono oon raalli gelino waa qofkee qofkaasi xambaarsaday wixii xumaan taariku salaada ka tegay waaye midka salaada ka seexday waaye waa midka aan salaada hagaajinin taariku salaadka ilaah agtiisa wanaag kuma laha taariku salaadku waa malcuun taariku salaadku waa axad alle ka furtay taariku salaad ayaa loo soo diraa si saxariir oo dhib badan xayaatada uga qaada taariku salaadka hal salaad ayuu tukan waaye oo diinta alle ayuu la imaan waaye anil mujrimiina maa salakakum fi saqar qaaluu lam naku min almuslimin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وضيع أيو راجنا بريس يقدر أوجد لها ضبطين وحالها والصلاة إمادة ليبان إمادة من أن ليبان جرين أيو ليبان كرادينا خارق الصلاة كمسلمين ولا معها فنان كاليسك جيا هدود انتان لنقل هدود انتان لكرفاني هدود انتان سفي عن لودوغ قري أيال لغو جيدا رشن قبكان لغو طورا ولا قبتا قد انت لو قضا ليسك ردا رضا لغو شبا حشمت إيا وناك ملك قيمة إيا وناك أولي هاي ملاها مسلمين ولا معها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ما تقدم قول إيه شقان كجرنا صلاة الظهر إيه عسرك مغربك إيه عشاها للجمعين عارف الصلاة كالعنف الله كسودك تهبين إيه مالي بركة أيا عمرقي صلاة ترتراع كتارك الصلاة كادتك كلامد معها شرف أوليه هاي ملها عرير إيه رفات أيو كجرا تفش إيه دب أيو شرقا هبين إيه مالي تارك الصلاة كعمل والبقى وقبكان لغا أجر إيه طواب سينين إلين واحد كافر برقيسا لسكو إريريا إلا في رهيسا أي إسكتافان أو كوي بلح جري أي ملك تمران كوي ملك تجرين أي بلح صومران قبرقا الله هريا تارك الصلاة قبلها صلاة كتغو إله أسور رجوع مسلسليالك أكبر ديو عجلوين كفلين كهبين إيمال دارتا لا إلهي كدكتو صلاة أن أقوى من أنا استاقي وركسو كع أو توبكين وأجيدين فيرها لستافسينا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إذا عد قرآنك كريم كأي مقدشو وحي إذن صوبا لغيسا محاضرة عنوانك يهي تارك الصلاة ومحاضرة أسجدي صاحب الفضيلة الداعية الشيخ حسن إبراهيم عيسى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إلهي سبحانه وتعالى صلاة الله تغى وحقو كدغي ذنوبته ugu waaweyn oo ay dadku ku helaan ama ay ku mutaystaan cadaabka jahannamo. salaadu waa tiir ka mid ah tiirarka islaamka, waa camalka alla loogu dhawaado kuwa ugu fadliga badan, waa bacda tawxiid camalada alla loogu dhawaaday u fadli iyo wanaag badan tahay. sidaa darteed ayuu ilaahay salaada waxa uu ka dhigay tiirka diinka. qofkii hoojiya, qofkii ooga oo sidii loogu talagalay ula yimaada ayaa liibaana. qofkii dayaca oo ku cayaara sidii loogu talagalay aan u tukanin ama ka seexda ee taariku salaad noqdaa alla agtiisa qiimo iyo wanaag kuma laha. sidaa darteed mawduuc ku saabsan xukunka iyo qofka taariku salaadka ah, dhibka iyo rafaadka uu leeyahay iyo cadaabkiisaan wax ka tilmaami doonaa. dadkii wan wanaagsanaa ee salaada hagaajin jiray markay aadaanka maqlaan markay way carari jireen oo dhanka masaajidka uu ordi jiray. aayadaha ilaahay marka lagu aqrinayo khushuuca iyo walbahaarka iyo cabsida iyo iimaanka u kordhinayay markay adduunka ka tageen. dadkii xumaanta ka ilaaliyey dunida, arlada ilaahay hagaajiyey, ilaahay ku caabuday, nolol fiican ku noolaaday markay adduunka faaruqeen oo ay ka tageen, khuluuf ayaa soo hartay buu dhahay ilaahay. fakhalafa min bacdihim khalfun, khuluuf ayaa timid. waa qolo sharta qaliif ku noqotee, waa qolo diinta alla diiday, waa qolo sidii loogu talagalay adduunka aan ilaah ugu caabudin. fakhalafa min bacdihim khalfun, ugu horeyntii hawshay qabteen maxay noqotay? adaacu salaa, salaaday dayaceen buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. sahaydii aakhira ayay dayaceen. salaadii 7 sano nebiga inta kor loo saaray loo soo dhiibay dayaceen. shaygii ugu qiimaha badnaa ayay dayaceen. adaacu salaa waatabacu shahawaati, shahawaadkooda ayay raaceen. fasawfa yalqawna ghayaa, ghayi ayay la kulmi doonaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ilaa man taaba wa aamana wacamila saalixan, kii iska gaara oo maantaba towba keena, ilaahay rumeeya, camal wanaagsan la yimaada oo salaada dib u bilaaba, rabbigiisa xaggiisa uga qoomameeya, mar dambe inuusan u noqonayn goosta maahane. ibnu cabbaas wuxuu yidhi laysa macnaa adaacuuhaa, adaaceeda iyo dayaceeda ma aha bilkulliya oo ay ka tageen, laakiinse wakhtigeeday ka aqireen ayaa loola jeedaa. wakhtigeeday dhaafsiiyeen. doorka markii la adimaayey ooy dadku tukanayeen ayay dukaamooyinkooda fadhiyeen, maqaayadaha iyo baararkay fadhiisteen, goobaha qayilaada ayay fadhiyeen. hadhow ayay damceen inay tukadaan marka wakhtiga dhammaan rabo. sidaa ayuu ku fasiray ibnu cabbaas adaacu salaa. ee maba ahanba kulliya in looga tegay salaada way tugteen laakiin wakhtigeeday dhaafsiiyeen. wakhtigii loogu talagalay ulama imaanin. dadka noocaasa waaye dadka ghayiga iyo waadiga jahannama loo ballan qaaday. dadka xaaladoodu ay sidaa tahay waaye adaacu salaa, salaadaysan kulliya uga tegin laakiin dib ayay u dhigeen. saciid ibnu musayib imaamu taabiciyiin wuxuu dhahay waa inuusan duhur ka tukan ilaa inuu casr ka yimaado maahane. casrka ma tukanayo ilaa maqribka uu galo, maqribku ma tukanayo ilaa cishaha uu galo, cishuhu ma dugta ilaa fajarka, fajarkana ma tukanayo ilaa tuluuci shams, ilaa qoraxda soo dhalashadeeda laga gaaro. qof allaala qofkii ku dhinta asagoo xaaladaa daa'imay oo aan ka tooba keenin, ilaahay ghayi ayuu u ballan qaaday. waa waadi jahannamo, waadi jahannamo ku yaalo, salkiisu baciid yahay, dhadhankiisu uu khabiif yahay. maca daalika ayuu ilaah yidhi fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun. halaag iyo weel wuxuu u sugnaaday dadka salaada sahwiya, dadka salaada tukada, maca daalika salaadooda saahuun u ah, ay gaafiluuna canhaa, salaada xaggeeda ayay gaafiliin ka yihiin. way hawaystaan oo waxay ka dhigaan mid daciif ah. sacd ibn abi waqaas wuxuu yidhi rasuulka ayaa la su'aalay
oo la weydiiyey hum can salaatihim saahuun markaasuu dhahay waa dadka wakhtigeeda kadib dhiga wakhtigii loogu talagalay ayay ka daahiyaan musalliin ayaa lagu magacaabay laakiin tahaawunka iyo dibdhiga ay wakhtigeeda ka dibdhigeen ayaa weyn loogu ballanqaaday waana cadaabkiisa ugu kulul waadi jahanama waa lagu fasiraa haddii wax yar lagu socodsiin lahaa ee la taabsiin lahaa weynka jibaasha adduunka yaala way dhilaali lahaayeen kuleelka iyo xanuunka uu leeyahay dartii waxaa maskan uu u yahay sakan uu u yahay oo degaaya dadka salaada hawinay oo wakhtigeeda ka dibdhigay ilaa inay ka tooba keenaan oo ay ka nadaamoodaan waxyaabihii xumaana ay sameeyeen maahane taariku salaadku waa malcuun ummadii maanta taariku salaadnimo ayay u bateen salaadii ayay ka tageen hooyadii ayaa taariku salaadad ah oo aan salaada hagaajinayn ama wakhtigeeda ka dibdhigaysa howla adduun iyo howl guri ayaan haayay ku leedahay owlaadaa igu oynaysaan celinaaye cudurdaar ma noqonaayo dumarka iyo raggow dukada sidii laydinkugu talagalay u tukada wakhtigeeda u hagaajiya ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah war dadka iimaanka lahow maalkiina iyo awlaadiina yay idinka mashquulinin dikriga ilaahay waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum alkhaasiruun war qofkiisaa yeela maalkiisa iyo awlaadiisa dikriga alla ay ka mashquuliso khaasiriinta ayuu ka mid yahay mufasiriintu waxay dhaheen muraadka bidikri illaah loola jeedo waa salaadaha shanta ah can dikri illaahi can salaati illaah salaada alla xaggeeda yaysan owlaada iyo maalka idinka mashquulinin qof allaala qofkuu maalkiisa iyo beeciisii shirihiisa maciishadiisa iyo owlaadiisu ay salaada wakhtigeeda uga mashquuliyaan kaana min alkhaasiriin sidaa darteed ayuu nebigu yidhi shayga ugu horeeya ee qiyaamaha addoonka laga xisaabaya camalkiisa waa salaada hadday wanaagsanaato faqad aflaxa wa anjax waa liibaanay waana koray cadaabka ayuu ka koray kurbada iyo rafaadka qiyaamaha ayuu ka liibaanay hadday salaadu nusqaantana faqad khaaba wa khasar waa hoogay waana liib waana khasaaray ayuu dhahay nebiga waa hoogay waana khasaaray qofkay salaadiisu wanaagsanaan weyso ummad fara badan oo qiyaamaha yimaada ayaa inta laysku xirxiro oo la jiidaa waxaa lagu tuuraa cadaabka saqara waa laysu su'aalaa oo waxaa la leeyahay maa salakakum fii saqar war maxaa saqara idin keenay maanta maxaa naartaan saqara idin soo geliyey war camal ayaa jiray haddii la sameeyo aan saqara la imaanin saqara waa meesha ilaah uu yidhi laa tubqi walaa tadar lawaaxatun lilbashar calayhaa 19 wax ma baaqi yeesho wax ma hambayso qofkii lagu riday wada cuntaa maqaarka iyo jasadkay ka feenataa maxaa meesha idin keenay qaaluu lam naku min almusalliin waxay dhahayaan salaadan ka tagnay kuwa salaada tukadaan noqon weynay taariku salaadiin ayay ahaayeen war qofka salaada ka tagow maqal oo dhegayso salaada oo laga taga saqaraa lagu mutaystaa su-aasha lagu weydiiyey jawaabteedu waxay noqonaysaa lam naku min almusalliin walam naku nutcimu almiskiin kuwa maskiinka quudiya ma ahayn wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin baatilka ayaan dhex dabaalanaynay xumaanta ayaan ku dhex jirnay musalliinta iyo dadka salaada inay dugtaan loogu nimceeyey safafka ayay taagan yihiin rabbigood ayay hor taagan yihiin iyaga iyo qiblada ayuu u dhaxeeyaa maca daalika way sujuudayaan way istaagayaan rabbigood ayay u khushuucsan yihiin annagana waxaan fadhinay xumaanta meelaha lagu haayo wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin meeshaasaan iska dhex dabaalanaynay waxaan ka sheekeynaynay sheekooyin maalaa yacni ah qaxwooyinka ayaan fadhinay qabiilooyinka ayaan kala taageeri jirnay labada qolo ee banooniga ayaasaan kala taageeri jirnay wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunnaa nukadibu biyowmi ddiin maalinta qiyaamo kuwa beeniyey ayaan ahayn xataa ataana alyaqiin ilaa yaqiintii iyo dhabtii ay noo timid idan taariku salaadka alla agtiisa qiimo uu ku leeyahay malaha taariku salaadku waa ilaahay qofuu lacnaday sharaf ma laha wanaag uu leeyahay male bahjo iyo khayr ayaan ka muuqanin waa axad kaafir ah taariku salaadka
kaafir waayo nebigaa yidhi cahdiga iyo ballanada calaamadahana laku yaqaana baynanaa wa baynahum gaalada iyo annaga waa salaada faman tarakahaa qofkii ka tagaana faqad kafara waa uu kufriyey nebigu wuxuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri addoonka iyo gaalnimadaba waxaa baynkooda ahaatay ka tegidda salaada hadduuba salaada ka taga wax u kala dhaxeeya ayaan jirin maca daalika addoonka iyo kufriga waxaa u dhaxaysa waa salaada qofkii ka tagaa kaafir ah qofkii ka taga oon tukanaa la cadaaba qofkii ka tagoo sidii loogu talagalay aan ula imaanin ayaa la naaraa jahanamaa lagu abaalmarinaa dadka muslimiintow salaada hagaajiya taariku salaadiin ha noqonina taariku salaadka qiimo ma laha faa'iida ma laha dhulka uu fadhiya ayaa lacnada guriga uu ku jiraa lacnadaaya raashinka uu cunayaa lacnadaaya sidaa darteed taariku salaadku dhib weyn ayuu markaa leeyahay sidaa darteed ayuu rasuulku dhahay qofkay salaada casirkaa keliya ka tagto xabidad camalu camalkiisa waa buray rasuulku wuxuu dhahay man taraka asalaa qofkii salaada mutacamid iyo si ula kaca uga taga faqad bari'at minhu dimmat allah ilaahay dimmadiisa ayuu beri ka yahay ballanta alla ayuusan ku jirin bannaanka ayuu ka taagan yahay waa qof allaala qofkii hal salaad si mutacamida oo kibira markaa uga taga rasuulku wuxuu dhahay waxaa lay amray an uqaatila annaas inaan dadka la dagaalamo inaan dadka laaya xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa kelimada tawxiidka ay ka qiraan ilaa ay shirkiga ka tagaan ilaa ay tawxiidka dhabnimo u aaminaan oo wayuqiimu asalaa salaada ay ka hagaajiyaan sikada ay ka gutaan fa idaa facaluu daalika arrintaa hadday sameeyaan dhiigooda iyo maalkooda ayay iga dhowreen hadday laa ilaaha ila allah dhahaan risaalada nebiga ay marxabaysiiyaan oo ay ku daraan ay naqiraan salaadaha shanta ah ay ilaaliyaan sikada ay xoolahooda ka bixiyaan fa idaa facaluu daalika